munaasabad ballaaran oo lagu shaacinay musharaxnimada aqoon-yahan Cali Ducaale Axmed oo u taagan tartanka baarlamaanka Soomaaliland ee doorashada soo socota oo ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay howlka shirarka Mawraan ee magaalada Ceergaabo. Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sanaag, taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag, boqorro, cuqaal, aqoon-yahano, dhalinyaro, haween iyo marti sharaf aad u tiro badan. Waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay aqoon-yahan Cali Ducaale Axmed oo ka warramay hankiisa siyaasadeed ee ku wajahan doorashada soo socota. waxaan ka sharaxanahay xisbiga kulmiye waxaan ka mid ahaa taageerayaasha xisbiga kulmiye muddo dheer waxa aad ii dhiirigelisay markii uu madaxweynaheenu ku dhawaaqay wadadii lagu dhawaaq waayay ilaa iyo 1960 intii dawladdu inteedii waa qabatay laakiin dadaalku wuxuu ka dhiman yahay dadkeena gobolka Sanaag. waxay iyaguna halkaasi ka hadlay xubno aad u tiro badan oo isugu jiray boqorro, cuqaal, xildhibaano, aqoon-yahano iyo haween oo dhammaantoodba cadeeyay taageerada ballaaran ay la barbataagan yihiin musharax Cali Ducaale Axmed. xafladan waxaan loo qabanay musharax Cali Ducaale Axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo degmada Ceergaabo ku dhashay mutacallima oo afar luqadood buu ku hadlaa waxaan ku faanaa degaan iyo muxuu ahaa degmada xiis iyo degmada iyada labaad oo Ceergaabo ah dadweynaha Ceergaabo oo dhan buuna ninka ka yahay nin ka muuqda oo ka baaldahaba kaga jira soo dhaweynaya xildhibaanka maanta loo soo bandhigay inuu yahay xildhibaan xisbiga kulmiye ka sharaxan waqtiga doorashada ee xildhibaanada baarlamaanka arinta waa soo dhaweynayna waan ku amriyeynaa maanta aan dooran dadkii loo baahnaa ee dalka u soo jeesanayay soo sharaxay ee kulmiye soo sharaxay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay oqaashi gobolka Sanaag waanu kula talinaynaa kuwii aanu dib iyo dam lahayn oo aanu soo saaray oo aanu ku qasaaray inaan ilaahay ka dhigin. gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa isaguna dhinaciisa musharaxan u rajeeyay inuu guul wax ku oo ka soo hoyn doono tartanka doorashada baarlamaanka Soomaaliland ee soo socota. musharaxa daada yar waan iyaan dhageysanaynay hadaladiisii iyo dareenkiisa waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ilaahay kugu guuleeyo kaalintaad soo dhigtay reer Ceergaabona uu idiin sheegay inuu magaalada u doodayo war cid wax idiin tarta oo wax idiin qabata oo waxa meeshan ka dhiman hankeeda la tagta meesha ayaa loo baahan yahay oo gobolkii u dooda oo ummadda u dooda laakiin inuu had iyo jeer ay sida ragga qaarkii ay caadaysteen maaha la yiraahdo alla bari waxa ay wareysi laga soo qaaday alla bari wuxuu ilowsay taariikhda Soomaaliland alla bari wuxuu ilowsay waxa Soomaaliland ay meel wada dhigatay iyo inay wax wada leedahay inuu wax ku leeyahay ilowsay wuxuu rabaa fadhiga in kursi loogu keeno waxaan oran lahaa berigii horena waan ku yiri anayo tartanka gal oo xusbi furo oo dalka hogaami xaq baad ilowsantahay shalay inuu madaxweynaha Riyaale waxaad ilowsantay qayb inuu ahaa shalay baarlamaanka haystay waxaad ilowsantay jananka booliiska inuu ahaa nin reer Boorami in reer runtii ummadda waxyaabaha dhaxdhigaysa baan aad uga waa Barkad Maxamuud kadib telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Ceergaabo.